سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta oo ay bishu tahay 15 maalin xada ayaamahan baa waxa ka soconayay buugagtii la bedelayay baabuurta inagoo ay ku jirno sixir barar dhaqaale burbur aan la dhacayno in ninkii gaarigiisii cashuurtay ee maalintii dhawto lacagta laga qaaday haddana la yiraahdo maanta 60 bix de wax qofku kari karo maaha shacabku ma kari karaan in loo turo shacabka oo shacabka loo turo weeye waa ku raacsanahay in la bedelo lambarada oo la yiraahdo waxa la dhexgeliyo si aanu lambarku maalin walba gaariga marka aanu u qiimo beelin waa ku raacsanahay laakiin ninkii cashuurtay shalay cashuurtay in la yiraahdo 600 bix ma qaadi karo wasiirku soo qoray maaliyadda inay soo marto sharciga la soo mariyo baarlamaanku soo maray way ahayd shacabka de waxa ka wakiila baarlamaanku inay isla eegaan oo ka fariistaan oo isla soo eegaan bay ahayd laakiin la ku soo dhex turo la yiraahdo gaarigii shalay bixiyay lacagta bixiyay maantana ha bixiyo oo 6 bilood gudahooda ku bixiyo oo 600 ha bixiyo arrintaasi waa arrin aad la yaab leh oo aan loo turayn dadka oo shacabka loo turayn oo shacabka loo turaa waxaanu ku jirnaa waan la dhacaynaa sixir bararkii dhaqaale xumadii hadda midna cashuurta waa la kordhiyay dawladda 4,000 bay ugu timid faaliyuga marka lagu qof wax soo iibsanayo 4,000 bay ugu timid 7,000 bay ka dhigeen de waxaas waxay fuulayaan shacabka waxa soo dega marka cashuurta la kordhiyo waxay fuulayaan shacabka in shacabka loo turay ahayd shacabka waa ogtihiin maanta xaaladiisu meesha marayso hadday iskuul tahay hadday guri tahay hadday jaamacad tahay hadday hotel daruurigi tahay wax walba cirka u baxeen marka xukuumadda waxa laga reebay dadkeeda inay u tudho eegto ka fiirsato lacagta 600 ay hala bixiyo in daajuro yar la bixiyo waan qabaa laakiin waxa $60 waxa qali gala maaha ninka laakiin isagu marka gaarigiisu cusub soo digo de wixii ay iyadu marka la isla qaato 100 baa la bixiyay in iyada lafteeda hoos loo eego waa fiican inta baabuurta ka buuga kala bedelkiisa intaasaan ku dhaafayaa waxaan kala u gelayaa midna foora shalay hadlay boolisku la hadlay haddaan la is dhaliilin oo wax la isu sheegin wax ma hagaagaan in la is dhaliilo oo wax la isu sheego oo wax la toosiyo weey boolisku waa run waa ku seexanaa waa booliiskeeni laakiin booliiskii wax yaqiinay waa gaboobeen rag gaboobay noqdeen laakiin rag hadda mar inay wax ka bartaan oo iyagu wax baraan oo wax la baro oo iyagu soo saaraan weeye laakiin marka la yiraahdo waxba xun booliiska waxba ka xun waxba inaga xun in la yiraahdo maxkamad baa lagu geynayaa ama waxa lagu geynayaa xiraalinta lagu geynayaa de maaha waa in daliishii la sheegay la toosiyo wax lagu qaato oo aan dadka loo caga jugleen ma fiicna oo waxaanu de waxaas laga soo dagaalamay in la isu caga jugleeyo waa in arrinta lagu eegaa marka wax la isu sheegaa matalan waxaad ogeydeen hadda maalmahan taagnaa haamihiin baa taagan haamaha in ganacsataa waday rag wanaagsan oo odayaal ay ahaayeen in loo yeero oo la wada hadlo oo miiska korkiisa lagu wada hadlo oo wax la isweydiiyo baa fiicnayd laakiin dusha warqad la iska keeno ma hadee waxa lagu farayaa maaha waa in la soo yimaada laga wada hadlaa wax la isku soo saar wax la isku tusaa waxaynu ku soo caalamaalay halka ku soo gaadhnay Soomaaliland haday tahay wasu tanaasul wada fariisi wada tashi tiwa maanta meesha ka maqan waxaana laga rabaa waxaas oo dhan ومسؤوليته laga doonaya waa madaxweynaha waxaas oo madaxweynaha ku soo dhacaya dib madaxweynaha hadaan waxaas aan u dul qaadan karin dib madaxweynaha ma soo doonateen oo inaad waxa u dul qaadataa wax ka qabataa wixii la tabanayo dad umada ka tabanaysa waad ka hadashaa oo dadka la hadashaa laakiin hadda tiraado waa isxiraya oo cid la hadli maayo oo cidna loo joojin maayo isagoo soo soconaa garanayno Soomaaliya soo soconayso garanayno xalaaga baahan yahay inaad dadka la hadashid عدي محتوى سبع الهرفريستي لقنعيو لو وضح الله
waxaan baqaa dad matalan dad waxba ka maqneen baa oranaya Somaliland maanta waxba naga wada maqan Somaliland oo dhamin maanta leedahay waxba naga wada maqan laakiin haddii la wada fadhiisto oo la isqanciyo oo la soo wada fadhiisto waxa laga yaabaa inaan waxba maqneenba laakiin marka la isu aamuso oo dagaal laga xidho hadal buuqa iyo qeyrada baa sii badanaysa qeyrada iyo buuqa sii badanaysa hadalka anigu hadda waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne dadka maqal dadka cadaalad bay kaaga baahan yihiin cadaaladii waa taa tir dadka cadaalad waa la maqlayaa waa la tashanayaa tii waa laga rabaa tii baa laga rabaa ganacsatada haamahana la kulan oo la fadhiiso u yeero miiska wada fadhiga isugu kaalaya intaas ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.